بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. anigoo suldaan aadan yuusuf nuur oo suldaanka burco waxaa maanta halkan keenay warbaahinta shaqaaqo laga abuuray beesha dhexdeedii iyo deegaankii oo ku saabsan shidaal la baarayo oo dadkii oo aan waxba loo sheegin lala hadlin cagafyo iyo ciidan la geliyey. arrinta sababtay inaan halkan imaado waxa weeyaan taas weeyaan aad baan uga dadaalay inaan is-afgaransiiyo dadka iyo dawladda, waayo cidda hawsha wadda ee qorshaha maamulkan wadda waa dawlad. waxa weeye in dadkii wixii ay xuquuq u lahaayeen ka hadlayay la diiday, la afduubay oo loo soo kaxaystay ciidamo 150 ciidan ah oo bileys ah iyo RRU ah. taasuna waxa weeyaan waa dhibaato soo korodhay oo aan meesha ku jirin, oo aan ahayn tii dawladda loo doortay ahayd. dawladda dadkii doortay ee maanta ciidan u soo adeegsanaysa. aad baan uga dadaalay inaan isu afgaransiiyo. waxay ka socon weyday xagga xukuumadda ka socon weyday, ama barasaab ha ahaato ama ha ahaato taliyo qaybeed ha ahaato ama wasiira ha ahaato. in dadkii la is-afgaransiiyo ayaan doonay, oo ciddan shidaalka wadata iyo dadka deegaanka ah inay wada hadlaan oo dabeetana hawsha halkaa ku dhammaato. waayo muddo badan bay soconaysay. muddadaa ay soconaysay dhinaca bay ka soconayso, waxay ka soconaysay bariga ay ka soconaysay. qof shaqaale oo halkan iminka hawshu ka taagan tahay laga qortay ma jirto. markii laga wada hadlay waxay yidhaaheen xaggaa markay soo dhammeeyaan dad kalaa la qoraya oo dhinacan kale ah oo wixii xuquuq ay u leeyihin iyagu qaadanaya. lama suurto gelin arrintaas. dadkii baa lagu soo kiciyey cagafyadii iyo ciidan wada socda ayaa meeshii la soo geliyey. dhacdada aanu ka cabanaynaa waxa weeyaan in laga joojiyo dagaalkan la bilaabayo, la horinayo nabadgelyo darrada ah ee cadaalad darrada ah ee la wado in la joojiya baan doonaynaayo nabad lagu soo celiyo dalka. meesha wax ka jiraan waa Sanyare iyo nawaaxidiisa, aagga Burco, degmada Burco nawaaxideeda weeyaan. marka waxaa jirta baloog la yidhi waxa la raaciyey bari baa la raaciyey oo waxaa laga xukumaya Caynaba laga xukumaya. shaqaalaha ka shaqaynayaana waxa weeyaan shaqaalihii bariga. dadkii joogayna waxay ku leeyihiin aanay jirin xuquuqa. markii aan la hadlay anigu war dadka la hadlo oo waxay xaq u leeyihiin annaga ka mas'uulahe oo idin qaabilsiinayna oo idinka dhammaynayna nala suga oo naga warsuga. cidna loo joojin maayo. waxaanu eedaynaynaa barasaabkaanu eedaynaynaa, oo waxaanu eedaynaynaa taliyaha bileyskaanu eedaynaynaa, oo wasiiradaanu qaar ka mida eedaynaynaa oo yidhi RRU baanu sboogelnay meesha kala baxa dadka. wasiiradaa waxaa ka mid ah cadaani baa ka mid ah, wasiir cadaani ayaa ka mid ah. oo markaan wasiirka arrimaha gudaha meesha dagaal baa ka taagan, idinkuna hawl baa joogtaan, hawl dagaal baa qabateen, meeshaa waxbaa ka taagan oo barasaabkii iyo taliyii qaybta ciidan bay geliyeen. markaa ka joojiya iigee baan ku meesha ciidan baa RRU baa meesha gale ee ciidanka ka saara meesha. waxaanu ku baaqaynaa in nabad lagu soo celiyo, in wanaag lagu soo celiyo. dadka meesha degani waxay doonayaan inay nabad ku noolaadaan, inay nabad dadka kula noolaadaan. khayraadka ma diidana ka soo baxaya dalka, horumarka ma diidana. wax kaloo ciladahoo ku jirta oo dawladda ma diidano, iyagaa doortayba. dawladda iyagaa doortay markaa ma diidana. laakiin sida qalloocane loo maamulayo ayaa la diiday. waxaa la yidhi awr xamilkiisa wuu qaada, xadhig qalloocan ma qaado. marka cuqaashii maanta hawshii waa la joogaa. Sanyara la isugu tegey, nin caaqila lama kaxaysan, nin odaya lama kaxaysan. oo matalan qoladii madaxdii gobolka way tagtay meesha.
qof keliya ay leeyihiin kaalay oo hawsha nala xalil ma jirtay waxa weeyaan xabad caaradii baan ku wadaynaa bay leeyihiin dadkaa la xidhay iminka aniga lama soo gaarsiinin laakiin waa la xidhayaabaa lagu yidhi waayo cuqaasha waxaa lagu yidhi mushaharkana ha laga joojiyo waanaan xidhayaa buu yidhi anaa bara saabka maalintii hore xaal ka bixiyey oo siiyey yidhi taas ma jirayso wax xumaanay wadaana ma jirto ya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu